amniga iyo amaankana waa wax Ilaahay xaqiisa ka yimaado haddii Ilaahay ku nabadgelinayo cidna wax ku yeeli karto laakiin waa sida aad sheegtay marka dhalinyarada ay wada shaqayn wanaagsan kala dhaxayso wax qabadkaaga kordhay maxaa yeelay inta wax geysatay waa dhalinyaro inta wax loo geystay waa dhalinyaro inta la doonayay inay ka hortagto waxa la geysanayo waa dhalinyaro maanta markaad booliska inkastoo booliska uu ka yarduwan yahay hadana nabad sugidda iyo militariga markaad u fiirsato waa dhalinyaro aad da'doodu u yartahay raggan kale ee cadawga ah aan dagaalka kula jirno markaad eegto iyagana waa dhalinyaro dadkii public ahaa ee haddii wada xiranto ama dhibaato kala dhacdo ama qarax dhaco geerida iyo dhibaatadii dhaawac ku badan yihiin waa dhalinyaro marka dadkii sida ahaa ee dhan walba bulshada uga jiray marka ay wada shaqayn kala dhaxayso wax wadaagtaan waxa kor u kacay wax qabadkaaga iyo wax ku oolnimada waxa aad qabato marka waa runta xiriirka dhalinyarada nagala dhaxayay wuxuu wax badan ka taray in haday amni noqon lahaydna degmada amnigeedu uu kor ku haday xiriir iyo wada shaqayn isku dhawaanshan noqon lahaydna aanu isku xirano anagii dhalinyaradii aanu iska warayno dhalinyarada de fariinta aan fari karno iyo waxaan rabnaa inaan gaarsiino wax kalmad iyo laba lagu soo koobi karo ma aha laakiin anigu waxaan isku dayaa inaan ku soo koobo dhalinyaro inta yar ee aad tihiin yaanay idin ajabin laakiin inta badan ee aad noqon kartaan ee idin dhiirigeliso waa mahadsantahay